madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayay oo maanta safar hawleed ku gaala bixinayay gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa ku soo gaaray magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley halkaasi oo madaxweynuhu ku dhagax dhigay jidka laamida ee u dhaxeeya magaalada Kalabayd oo ka tirsan degmada Gabiley iyo degmada Dila oo kamid ah degmooyinka gobolka Awdal isla markaana isku jira qiyaas ku dhow 15 kiiloomitir madaxweynaha oo socdaalkiisani ay ku wehelinayeen xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo ay kamid yihiin wasiirada wasaaradaha madaxtooyada dakhiliga khaarijiga caafimaadka arrimaha bulshada beeraha iyo warfaafinta xildhibaano ka kala tirsan golayaasha sharci dejinta ee wakiilada iyo guurtida iyo saraakiil kale ayaa waxa ku soo dhaweeyay magaalada Kalabayd oo ka tirsan gobolka Gabiley maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka iyo waliba howlwadeenada kala duwan ee laamaha dawladda ee gobolkaasi Gabiley madaxweynaha oo munaasabadii dhagax dhiga wadada u dhaxaysa Kalabayd iyo Dila ka hadlay ayaa sheegay in ay ka xukuumad ahaan ay ka go'an tahay dhamaystirka jidadka laamiyada ah ee guud ahaan gobolada dalka Soomaaliland aan ku faray wadooyinka ay sameeyno waa dalkii dadku ku tarayaan insha Allah halkaas ay ka soo rajayno waxay kala kasii wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Xaaji Cali Xasan oo isaguna isla dhagax dhigaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay mashruucan dib loogu binaynayo wadadani Kalabayd ilaa Dila cidda maalgelinaysa isagoo geesta kalena uga warbixiyay madaxweynaha in ay gabagaba ku dhowdahay wadadii Kalabayd ilaa Wajaale isku xidhaysay halkan waa mashruuc cusbaaya inaga bixiyeen Somaliland Development Fund inaga bixiyeen waxa weeye lacagteena ugu deeqeen EU-da iyo Dila la isku xidhayo laba meelood ay inaga bixiyeen halka 2 milyan bay ku bixiyeen oo processkii ku jirta halka kalena waxa weeye meesha la yiraahdo la Faruuq ilaa iyo Sheekh oo iyaduna wadada la yani maintenance lagu sameeyo dib hagaajin lagu sameeyo dib habayn marka kiiba halka ka bilaabanay insha Allah taala intii shishay xagga shishana way dhamaatay already oo waatay insaan maayarka magaalada Gabiley Shucayb Maxamed Muuse oo xubnaha wafdigani madaxweynuhu horkacayay ku soo dhaweeyay magaalada Kalabayd degmada Gabiley ayaa sheegay in degmo ahaan ay soo dhaweynayaan horumar kasta oo laga hirgelinayo degmada Somaliland soo dhawo Gabiley ku soo dhawo hooyadii halganka iyo hooyadii Somaliland intaas waa taa wax sharaf weyn oo ah iyadoo maanta ay dhamaatay oo gabagaba ay ku dhowdahay wadadii isku xidhaysay Tog Wajaale iyo Kalabayd oo ay maanta caratuulka gaaray controlkii waqooyi magaalada in maanta nasiib wanaag madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu dhagax dhigay wadadii isku xidhaysay haddana ee dib loo hagaajinayay Kalabayd iyo Dila oo ka tirsan degmada maaragtay Gabiley inta u dhaxaysa Gabiley iyo Dila gabagabadiina madaxweynuhu wuxuu aanbabaxay dhinaca iyo degmada Dila oo ka tirsan gobolka Awdal halkaasi oo madaxweynuhu xadhiga kaga jarayay wadadii isku xidhaysay Dila ilaa Boorame iyadoo wadadani uu dhagax dhigay madaxweynuhu ee Kalabayd ilaa Dila ay noqonayso wajiga labaad ee lagu dhamaystirayo jidkii isku xidhayay magaalada Boorame iyo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isla markaana ay noqonayso wadadii saddexaad ee isla gobolka Gabiley uu madaxweynuhu dhagax dhigo Idris Ahmed Ismaaciil Qadiye telefishinka caalamiga ee Royal Gabiley